وعانو wanaagsan dhamaantiin ba meel kasto aad inagala socotaan ba wararkeenana waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo guulo wax ku oola saacadii la soo dhaafay ka gaaray arrimaha aqoonsiga Soomaaliland kadib kulamo kala duwan oo ka wado magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaasi oo ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka daba waxaan kula wadaagi doonaa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro mas'uuliyiinta uu la kulmay iyo waxyaabaha la filayo saacadaha soo aadan xilli madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu si gaar ah ula kulmay xubnaha qoyska madaxweyne Trump iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Israel xogo iyo macluumaad dheeriyo arrimahaas ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa kulamadaasi iyo waxyaabaha looga hadlay maxaa ka jireen madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro saacadaha soo aadan uu qaadi doono tallaabo weyn waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan sidoo kale ilaa iyo haatan saddex dal ayaa la xaqiijiyay inay ku soo biiri karaan aqoonsiga Soomaaliland maqaalka Cabdiraxmaan Ciro uu ku qoray warbaahinta Wall Street Journalist ee dalka Israel ka soo baxday ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya dadaalo xooggan ayay bixinaysaa wafdigeeda ku sugan gudaha dalka Switzerland si gaar ah magaalada Davos xiriirada kala duwan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la sameeyo xubnahan kala shakiga soo kala dhaxgalay Saalax Jaamac iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya warbixin iyo xogo ayaan kaaga hayaa xilli la leeyahay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro saacadaha soo aadan waxa laga filayaa tallaabooyin waaweyn oo ku aadan arrimaha aqoonsiga Soomaaliland kooxaha Yuhuudda ee u loobi gareynaya Cabdiraxmaan Ciro miyay la kulansiin karaan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump waxaan ku hayaa warbixin iyo xogo faahfaahsan oo arrimahaas ku saabsan xilli reer Soomaaliland ay dabaaldegayaan xaaladuna ay ku xuntahay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dadaalada ay bixinayaan dawladaha Turkiga Qatar iyo Sacuudiga ayaan kula wadaagi doonaa xilli dawladda Israel ay doonayso in ay dhisto xiriir ay la yeelato dawladda Sacuudiga kadib markii arintaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha wadanka Israel oo ka hadlayay shirka dhaqaalaha ee caalamka